haddii shalay been lagu sheegay cabdicasiisow shalay NGO been ah dadka dhulkiisa kuwa gadgadanaya degmada afgoy gadgadanaya kaarar been soo samaystay lacag baan ku siinaynaa 10 milyan baa laga helayaa been kuu sheegay wallahi inaan la yeelayn hadda dibna ma ka aamusan doonay wax sabar looga leeyahay wadanka ka shaqeynaa ma jirto dhulka dad lagu boobaay ma jirto hadda waa diidnay kulamo muddo lama maalmood ee beledka Muqdisho ka dareeray beelweynta gara kaasoo yoon ku arsadayeen umuro masiiriga beela oo ku gaadacaan wareegto iyo hakubati xafiiska wasiirka umuro gudo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo la kamaga dhaway gudoomiyaha degmada Qoryooley walabaase munaasabada geega ku qayb galay ogaaska guud ee beela gare oo qaalo walgarodka aqoon-yahano barbaar iyo qaybo shal duwan ee bulshada beelweynta gare ee beledka Muqdisho rogaan ankuureen walabaase munaasabada ku hadalay walgarodka iyo aqoon-yahanada walabaase si wada jira yaan korkooyna magadhabowka gudoomiyaha Qoryooleyna nin garaam Qoryooleyna garo kuluma gorgortama kartid lafta gareen mid lagu gorgortama kar ma Qoryooley gorgortan ma gasho aabahana ku dhintay awoowayaashana ku dhintay adeeradana ku dhintay anaga uuriyaan u ah aqoontii soo korto waa Qoryooley idla laga gorgortama maayo iyo gobolka Shabeellada Hoose dhamaan gobolka Shabeellada Hoose boqolkiis 75 waxa degan gara awood asaas kale ku daba fariisan mayno حق أنا قال لنا هي حق قبل كشبله هوس لقليه كودا وفريسان ما يلم أبدأ أسيس لفت قرن ما أنت فرصة دان قرأن السوقية ركنتي باهدا رجارسيسي تاسع تالو ما أنت وحكليه اللجو هجاجين كرا وقرأ مدوبة وقرأ أو هل نقطة وقرأ أو ملك لي كسر جسته لكن هذه أنا عن حلو كان كلا أنا قد أبرك إقدره وحمام متيد ugaas nuur shaakoyan kuugu soo dhiibnay waa ku imaatay waa lagu sheegay degmada Qoryooley hadii ay soo baxdo warqad aan anaga qayb ka ahayn wixii ka dhaca in mas'uuliyadeeda ay qaadaysid maantana si public ah u sheegayna waa qaadacnay warqadii 14 soo baxday ee wasiirkaagu uu soo saaray Qoryooleyna kama shaqeynayso mana aqbali doono haday tijaabo ka ahaydna dib ula noqo hadday runka ahaydna qaraarkeeda arkaysaa intaadan arkin dib ula noqo aniga isma lahayn Qoryooley maanta garo jooga in Abdiasiis asoo gar yaqaan oo og waliba gar iyo Abdiasiis markan u dhigno si kala qabiilka ay maxay ahayd taariikh soo jireena ka dhaxayso oo xariin i gar dhaqanka noocaan ninkan horta iimaan isma lahayn aniga marka waxaan kidiga mar walba hadii warqadaas been abuurka oo fake ah dadka lagu dulminaay aan laga fiirsan aan maxay laga baaraan degan Qoryooley waxay noqonaysaa la ascaanood walaalayaal waxtu qaal meheeno waxaan uni iska leh gobolka Shabeellada Hoose iyo awood qaybsiga ba awalba macnaha koonfur galbeed ba khaldanay hadan Qoryooley macnaha hadda mar lamaad in hadda tan ordu wasal u qaaday ba maayb tan wasal qaada karaay ma aya tijaabo waaye hadii tijaabo adu ahayd run was aratiin hatta waxa Qoryooley u dikraataday asigoo oo liiri hal sana ama 8 bilood xil gaarsiin ay haysataa in adeero dadkan hogaami liiri inuu warqadaas soo saaro waxay ka dhigan tahay inuu dadka iyo geeda socodka iyo horumarka iyo doorashada loo malan yahay inuu tashuush ku abuuro dadka kala shakasiyo tan waxba ka mid goon warqada soo saaray nabadoonada reerada uu bedelay oo uu nabadoono cusub soo doortay uu keensanay tan kama dugan waxaan ku leenahay ka fiirso arintan annaga dadkeena siyaasiyiinta way kula tashadeen talada ballantaada uga baxday ballantaada ka baxday anigana waa ka baxnay meesha allaale meeshayna gaarsiinayna ilaahay idinkiis dambe waliba se munaasabada hiray ogaaska guud ee beela gara saas kala gabagabada iyo waliba se munaasabada oo goobta la ka akhriyay warmurtiyeedka laha ku saaray shirka annagoo deegaanka muug miisaan ku leh in la tashan la'aan dad NGO ley la siiyo barnaamijkan waa ka xunay runtii oo ayadoo beesha aan lala tashanin degmada Qoryooley dad loo magacaabo runtii waa ka xunnahay arrin aan soo dhaweynayna ma ahan arrin aad aan ugu xunnahay waaye arrin aan yeelaynina ma ahan maadaama beelaha wada dega olaad kama dhaxayso
laba iyo toban sano beelaha soo difaacaya annaga ilaa 80 qof aa nooga dhimatay intaas oo 40 iyo dhowr qofna waa naga dhaawacantay dadkii annaga markay dhaawacmaan ama soomna soo qaadayso man inta keenaysa aan daaweynayna intaas dhabaata aan ku marayna beelaha ay ku marayaan maanta adoo gacan aan ka geysanin dadkaas sharci la'aan maamul goboleed iyo dowlad federaal waxba aan siinin haddana magaca dowladeed ku shaqaynaya intaas ku dhaawacmay ku dhimanaya haddii maanta adiga inaad ku takarfashid aad isku daydid wallaahi inaan yeelaynin beesha Garre waxay ka xun tahay in madaxweynaha koonfur galbeed uu ku ballan furay hoggaanka dhaqanka iyo siyaasiyiinta beesha taasina ay dhaawacayso wada shaqaynta beesha Garre iyo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaan u cadeynaynaa beesha caalamka ATMIS iyo dhammaan daneeyayaasha arrimaha degmada Qoryooley in beesha Garre aysan raalli ka ahayn magacaabista kor ku xusan ee ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ugu dambeyn beesha Garre waxay ugu baaqaysaa dadkeeda in ay u diyaar garoowaan marxaladaha siyaasadeed ee koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose iyo howlgallada ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya علي محمد شجاع راديها TV قرادي مقدشو